fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال مال ولي بقى هو ما أنتوا عالم كذا جوكتان كسر هذا ما أنت عياره قضب بدن بانوس عضو كسابسن عيارها هي كليب سوق عيار توجا ريال مدريد أو قعنت كسر بتاع عيار توجا لقوا ما جعبوا لوكا يوفيك يورك جدا بيجي أرمها يوفيك مدريد وان ما أنت وحكاها شيء جداره جاريسمان أو لقوا واقع دونين وعياريها برشلونة هي ساعدها سوق الدن إياه هدي مركان وكبير ويا برشلونة أولي أنا دب كبير دونين يقضب بكلام سوق هذا دونا أو كليب سوق عيار توجا ma ogtahay Sterling uu taageero weyn u ahaa Manchester United iyo qodobo kale ayaanu eegi doonaa xilli Sterling uu ka cadeysay Manchester United oo wuxuu ka dhahay arin la yaab leh mar uu cadeeyay kulanka ugu adag Manchester City ay ciyaarto xilli ciyaareedada soo aadan iyo kan haddaba yani kulanka ugu darbisan ee Manchester City ciyaarto war Sterling waa kii marka la weydiiyay keemu ku tilmaamay iyo qodobo kale oo soo qaadan doona oo ku saabsan ciyaaraha Leo Messi oo la siiyay abaalmarinta ugu weyn ee Catalonia iyo qodobo kale oo soo qaadan doona oo ciyaaraha maanta ba ku saabsan oo uu qayb ka yahay mid kamid ah kooxaha Premier League ka ciyaari doona xilli ciyaareedka soo aadan oo lagu maalgeliyay hantidii Osama bin Laden iyo qodobo kale ayaanu soo qaadan doona oo maanta ciyaaraha ba ku saabsan bal warkii oo faahfaahsan akhbaraadka waxyaabaha maanta ugu waaweyn waxa kamid ah kooxda Sheffield Wednesday oo ku soo biirtay xilli ciyaareedka waa Sheffield United oo xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doonta horyaalka Premier League ayaa hadda waxa wargeysadu England ay maanta iyo shalayba bogooda ugu horay waxay ku qorayeen in kooxdaasu lacagta lagu soo dhisay laga amaahiyay qoyska Osama bin Laden waxay wararku Ingiriisku bariyahan dhanba waxay maanta iyo shalayba wada qorayeen oo la yaab iyo fajac ku abuuray kooxda Premier League ka ciyaari doonta lacagaha lagu soo adkeeyayba in bin Laden qoyskiisa laga soo amaahsadayo waxaana hadda jira muran u dhaxeeya madaxda kooxdan Sheffield United ba jirta muranka u dhaxeeyo maxkamad ku tageen arinka ayaa wuxuu soo saaray war kale oo qarsana oo ah in ay ku jirtay kooxdan lacag in laga soo amaahsaday qoyska bin Laden yani labadii madax oo ku doodaya maxkamadda muran u dhaxeeyay labada madax ee kooxdan Sheffield United ayaa muranka u dhaxeeyay maxkamad intay kala garqaadaysay waxa soo baxday lacag 3 milyan oo la sheegay in laga soo amaahsaday qoyska Osama bin Laden oo kooxdan lagu adkeeyay kiiska u dhaxeeyay labadan madax ee Sheffield United maamula ayaa waxa uu qabsaday Premier League oo dhan saxaafadda England baana ariga aad u hadlaysa kadib markii la xaqiijiyay in lagu maalgeliyay lacag laga soo amaahday qoyska Osama bin Laden ba arinka waxay ka dhigaya waxaan la ogeyn ilaa hadda go'aanka rasmiga ee ka soo bixi doonto maxkamadda iyo sida kooxdan laga yeeli doono ee sanad dambe ka ciyaari doonto horyaalka Premier League akhbaraadka kale ugu muhiimsan maanta ciyaaraha waxa kamid ah Raheem Sterling ayaa cadeeyay in kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu ahaa bariga u yara taageero weyn oo aanu caadi ahayn Sterling ayaa taageero weyn u ahaa kooxda United markuu yara sida uu isagu cadeeyo wuxuu sheegay waqtigii uu yara inuu ahaa nin Manchester United taageera laakiin hadda waxaan ognahay labadii san la soo dhaafay wuxuu si weyn Manchester ugu qayb qaatay ragii la qaaday Premier League waa wiil 40 jir xilli ciyaareedkan waqti fiican buu qaatay wuxuu dhaliyay 17 gool isagoo caawiyay 10 gool 34 ciyaarood u ciyaaray Premier League ninka kan ayaa qayb ka ahaa ragii City boqolka 8 dhibcood bal la qaaday horyaalka wuxuu cadeeyay in uu taageero u ahaa finalkii 2007 kooxda Manchester United markaa isagu uu sheegay waqtigii uu yaraana inuu mar walba xiran jiray fanaanada kooxdan waxaanu cadeeyay inuu ahaa taageero weyn oo aad u weyn oo Manchester United maanta waa sitiyaysan yahay ka waran shalay wuxuu cadeeyay inuu ahaan jiray taageero Manchester United marka waxa weeyaan taageernimadu waxa weeyaan kuma xirna kooxdan baan hadda ciyaarayo kooxda Oman soo ciyaaro kuma xirno taageernimadu waa wax qalbiga qofka ka yimaada markuu yar yahayo Sterling wuxuu cadeeyay inuu Red ahaan jiray oo Red Devils uu taageeri jiray waqtigii waadka u yaraa waliba fanaanada Manchester uu aad u xiran jiray taageero ma ahaya wuxuu cadeeyay inuu ahaa taageero weyn oo Red Devils wararka ku aadan suuq qaliibsiga ciyaartooyga Real Madrid waxay qarka u saaran tahay la wareegida ciyaartooyga kooxda kubadda cagta ee Frankfurt Luka Jovic wararka qaar waxay leeyihiin Sky Sport ay soo qorayso in heshiis la gaaray oo ciyaaryahanka Madrid heshiiska ay la gaartaba wararka qaarna waxay leeyihiin Real Madrid wayba ay la wareegtay ciyaaryahanka kaliya waxa dhiman ku dhawaaqista ciyaartooyga kan
wararka ku aadan Jovic iyo Real Madrid waxay hadda gaareen meesha ugu dambeysay waxa Real Madrid ay ku dhowdahay ila wareegada ciyaartooyga kan Jovic oo aan ku aragnay xilli ciyaareedka wacdarada u dhigayo waa ninka dhaliyay xilli ciyaareedka 27 gool 47 ciyaarood u ciyaaray waxaanay wararku leeyihiin Madrid gacanta bay ku soo dhigtay ninka kan ilraado Luka Jovic waxaanay kula wareegeen lacago dhan 52.4 milyan waxaanu ciyaariyahanka uu qaliga ku duugi doonaa heshiis 5 sanadood ah marka waa la isku raacay gabi ahaan in Real Madrid ay la wareegtay ciyaartooyga Jovic laakiin wali warka rasmi ma ahan macnuhu heshiisyadu waxay leeyihiin dhinacyo waxay leeyihiin qaybo badan bay leeyihiin marka kuwaad horta heshiis baa la gaarayaa marka labaad waa rasmi ayuu isu bedelayaa wali ilaa hadda Madrid ilaa iyo Frankfurt wali heshiiskan wax rasmi loogu dhawaaqay ma jirto laakiin warbaahinta qaar oo Sky Sport ku jirto waxay leeyihiin heshiiskan waa dhacay oo Jovic waxa gacanta ku dhigtay kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin anagu waxaan sugi doonaa ku dhawaaqista rasmiga ah ciyaaryahankii Real Madrid baa ku dhawaaqday inay la wareegtay markaasna warkaas waa isku soo dhamaaday oo warkaas waa cad yahay warka intuu ka cadaan iska sugi doonaa laakiin waxay warar ku leeyihiin Real gacanta ku soo dhigtay ciyaartooyga Luka Jovic waa nin ku khatar badan lugta bidixid lugta madaxa runtii waa nin aad iyo aad u halis badan baa leeyahay Real Madrid ninkii gacanta ku soo dhigtay marka heshiiska ciyaartooyga iyo Madrid iyo kooxda Frankfurt waa dhacay bay leeyihiin Sky Sport waxay leedahay ciyaaryahanku Madrid buu sii noqday laakiin wali rasmi ahaanshuhu warkan waa dhiban yahay kolba wuxuu iska soo bixi doonaa galabta iyo caaw iska soo bixi doonaa laakiin ninkan waa sii Madridoobayaaba akhbaaraad kale ugu muhiimsan ciyaaraha marba hadii Real Madrid ay Jovic gacanta ku dhigayso maxaa ka soo cusboonaaday arimaha Antoine Griezmann iyo kooxda kubadda cagta Barcelona waxay warar ku leeyihiin maamulka kooxda Barcelona waxay ku dhawaaqeen ama ay ku dhow yihiin inay ku dhawaaqaan heshiiska ciyaartooyga Antoine Griezmann waxaanay warar ku leeyihiin madaxda ugu sareysa kooxda Barcelona uu kamid yahay madaxweynaha kooxda wuxuu talaab weyn u qaadayaa saxiixa ciyaartooyga Griezmann waxaanay Barcelona aad u doonaysaa baa leeyahay intaysan kooxaha kubadda cagta Yurub oo dhan Griezmann soo doonan inay iyagu goor hore la wareegaan waxay warar ku leeyihiin maalinta soo aadan Isniinta ay Barcelona doonaysaa inay ku dhawaaqdo heshiiska ciyaartooyga Antoine Griezmann ilaa waxaa jira kooxo badan sida Bayern Munich, Paris Saint-Germain iyo Manchester City baa doonaya ciyaartooyga Griezmann laakiin waxay warar ku hadda leeyihiin madaxweynaha Barcelona wuxuu hadda go'aan rasmi ku qaatay heshiiska ciyaartooyga inuu dhameystiro sida ugu dhaqsiyaha badan waxaanay warar ku leeyihiin heshiiskan waxa lagu dhawaaqi karayaa maalin Isniinta sida ay Barcelona suurtagalka ay tahay u doonaysaba marka Barcelona waxay filaysaaba heshiiska Antoine Griezmann ay ku dhawaaqdo maalinta soo aadan Isniinta marba hadii maalin Isniinta warka uu soo gaaray xaalka Griezmann iyo Barcelona waa dhow yahay wallow la iska afduuban karo afduub inuu dhacno waa laga yaabayo laakiin wararku maanta waxay leeyihiin Barcelona sida ugu dhaqsiyaha badan bay go'aan ku gaareen waxaan rabaan in Griezmann ay gacanta ku soo dhigaan waxaana la filayay heshiiska inuu dhaco maalinta Isniinta hadii Griezmann baa leeyahay xilli ciyaareedkan uu ku biiri waayo kooxda Barcelona waligii dambe dib ugu biiri doono mana aqbali doonaan ciyaaryahankan kooxda la soo keeno taageerayaasha kooxda iyo maamulka kooxda maxay leeyahay Griezmann xilli ciyaareedkii hore ayuu Barcelona niyajabiyay isagoo la sugay inuu ku dhawaaqo inuu Barcelona ku biiro ayuu wuxuu cadeeyay inuu sii joogayo taas wixii argagixisay taageerayaasha Barcelona xataa maalmood markii lagu ciyaarayay kaamna waxay ku oriyeen Antoine Griezmann haddii sanadkan uu ku biiri waa leeyahay Antoine Griezmann kooxda Barcelona marnaba weligii kooxda dib uguma biiri doono marka wararku waxay leeyihiin Griezmann iyo Barcelona wali way ishayaano maalinta Isniinta baa laga yaabaa in heshiiska lagu dhawaaqo Barcelona waxay rabaan sida ugu dhaqsiyaha badan Griezmann ay gacanta ugu dhigaan maxaa yeelay hadhow waxa imaanaya tartan culus oo kooxaha Yurub ee ninkan doonaya waxaana warbaahinta Faransiiska ka soo baxay ay leeyihiin oo ay qayb ka tahay warbaahinta ugu afka dheer Faransiiska la kubi waxay cadeynaysaa oo ay cadeysay maalintii Arbacadii waxay cadeysay ciyaaryahanka in 5 sano uu la gaaray kooxda Blaugrana waxaanu ku qaadan doonaa 17 milyan oo euro ayuu sanadkii ku qaadan doonaayo marka warbaahinta Faransiiska xataa waxay leeyihiin heshiis sano baa jiro Barca ila sii gaartay Antoine Griezmann marka ilaa hadda heshiisku rasmi ma aha wax rasmi ma jiraan oo ah in Barca ay qaadato ciyaartooyga laakiin wararka kubadda cagta waxay ka bilowdaan wararka suuqa waxay ka bilowdaan la doonaya ay warku ka bilaabana heblaayo waxay doonaysaa hebel kooxda hebel waxay doonaysaa hebel bay doonaysaa uu ka bilaabanaya heshiiska kadib markuu saas hebel baa la doonaya waxa ku xigi doono way ku dhow yihiin waxa ku xigi doono heshiis ay la gaareen waxa ku xigi doona waa rasmi heshiisada intaas bay maraan oo xeer bay maraan marka hadda warkan uu Barca ku aadan wali waxa weeyaan way ku dhowdahayo heshiisyo baan jira laakiin wali warka rasmi ma ahan marka Barcelona iyo Griezmann wali xaalkooda waa dhow yahay baa leeyahay Isniinta baa la filayaa Barcelona sidii warku leeyahay ku dhawaaqdo ciyaartooyga heshiiskiisa kan
war kala ugu miisan maanta ayana ciyaaraha waxa kamid ah Raheem Sterling ayaa doonaya amaba cadeeyay oo ku adkeysanaya Man City xilli ciyaareedka dambana inay ku guuleysan doonto ciyaaraha Premier League taa oo ka dhigi doonto Man City in ay mataqaana markaa gaari doonto record 3 sano xiriir in Premier League lagu guuleysto 10 sano Premier League ma dhicin 2 sano isku xiga in la qaado iyaga duubta geedka haddana wuxuu leeyahay markii saddexaad baan u soo soconaa mar haddii Man City laga ganaaxo Champions League hadda qarka u saarin laga ganaaxi doono marka Man City waxa fursad loo siinayaaba inay u dagaalamaan horyaalka Premier League wada aragtay hadda markii Champions League laga soo reebay waxay xooga saareen inta dhiman Premier League wayna badiyeen marka Man City oo Champions League laga soo ganaaxay taas waxay ka dhigan kartaa in laga caawinayo Man City horyaalkii saddexaad xiriir inay gacanta ku soo dhigaan hadda Sterling wuxuu leeyahay maxaa noo diidaya xilli ciyaareedka dambe inaan gacanta ku soo dhigno Premier League Liverpool bayhin bariyahan kuwa sida aadka u tartamaan Liverpoolna waxay sida caadada ahayd ay dhihi jireen xaqaqa dambe baan horyaalka ku guuleysanayna sanad walba waxay dhihi jireen waligood marka horyaalka laga qaado maya kan dambe anaga iskale maya kan dambe anaga iskale reer anaga iskale kan soo socda ama koobka anaga iskale xilli ciyaareedka dambe reer anaga iskale reer Liverpool waxay la kulmayaan mushkilo weyn kooxdan Man City bayna mushkilo weyn kala kulmayaan oo hadda sii balansanaysa in sanadkii saddexaad xiriir ay rabaan ku guuleysiga ciyaaraha Premier League Man City waa nimanka sanadkii hore ku qaaday 100 dhibcood horyaalka Premier League sanadkan ku qaaday 98 dhibcood marba hadii Man City warkeedu uu yahay xilli ciyaareed walba in horyaalka Premier League ay hesho dhibco gaaraya 100 dhibcood ama 98 dhibcood hadii warkeedu uu yahay inay hesho marka abaarta Liverpool waa sii dheeraanaysa maxay la macquul ma ahan nin 100 dhibcood la imaanaya oo 98 dhibcood la imaanaya horyaal laga ma qaadi karo marba hadii warkeedu City uu yahay marna 100 ku qaado horyaalka marna 98 dhibcood ay ku qaado taas waxay ka dhigan tahay marka xaalka Liverpool ee inkaartu in la soo gabagabeyn karo way dheeraan kartaa Manchester United ayaa sameysay 3 ciyaar isku xig 3 jeer 3 sano isku xiga in horyaalka ku guuleysto Manchester tabariyaan la yaabantiin waa Manchester ku soo xiraxaystay Premier League Manchester bariyaan iska inkaaran tahay mooyaane laakiin waa Manchester record walba iyadoo lagu tagayo abo 83 Premier League meel la dhigtay ka waran intaysan Liverpool wali horyaal qaadin 83 Premier League bay qaadeen waliba inta waxa ku dheer hadii maan la wadleeyay recordkii Man United bay bareejay City oo ah in Man United baa ahayd baa kooxdii ugu dambeysay oo 2 koob isku xigay Premier League qaaday hadii City recordka ay bareejayeen haddana City waxay doonaysaa inay bareejayaan record kale Manchester leedahay Manchester United ayaa 2 jeer oo kala duwan waxay min 3 jeer xiriir ku guuleysteen ciyaaraha Premier League tusaale ahaan 1998 ilaa 2001 Premier League 3 sano isku xiga waxa qaadaysay Manchester United sidoo kalena 2006 ilaa 2009 3 sano isku xigay horyaalka Premier League waxa qaadayay isla Manchester United 2 jeer oo kala duwan oo min 3 xiriir bay horyaalka ku guuleysteen Man City waxay doonaysaa marka inay gaaraan recordkii kooxda Manchester United Allah maxay boqortooyo ahaayeen kuwa kan United bariyahan bay galab iska noqdeen oo mooyaane niman awood badan bay ahaayeen war laba jeer oo kala duwan bay min 3 jeer xiriir horyaalka qaadayeen Premier League ya 3 jeer xiriir iga hadda koor qaaday mar kale iyaga ayaa qaaday markii ugu dambeysay 3 xiriir qaadaan Manchester United waxay ahayd 2006 iyo 2009 waxana ka horeeyay 98 ilaa 2000 inta u dhaxaysay waxay kor wax khatar bay ahayd markay Sterling wuxuu cadeynayaa in sanadkan ay isku dayi doonaan markii saddexaad xiriir in gacanta ku dhigaan horyaalka Premier League oo la sintaan recordkii Manchester United ay sameysay kaas oo ay Manchester xataa sameysay tiro 2 jeer oo min 3 xiriir ay qaadeen markii ugu dambeysay ay sameysay 2006 ilaa 2009 inta u dhaxaysay areer Liverpool kii saddexaad xiriir baan rabnaa cid leeyihiin Arya Sheikh Mansour intaan geynina awoodiis wala way war ay leeyihiin Barcelona waxay ku dhowdahay la wareegada Griezmann xataa war qaar ba waxay leeyihiin Man City waxay isku dayi doontaa inay ku garaacdo ninka kan Griezmann kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa kale ugu miisan ciyaaraha iyana maanta macallinkii hore Real Madrid Julian Lopetegui wuxuu leeyahay 3 toddobaad oo qurun ah ayaa waqtigii Real Madrid ku dheelay buu leeyahay yaani maalmo xun baa soo maray oo ay kamid ahayd maalintii kooxdiisu asagoo lagu fardhiyay 5 gool oo ay Barca ku garaacday Clasico waka wuxuu yiri 3 toddobaad oo xun ayaa ku dheelay waqtigeyga Leo Messi ayaa la siiyay mid kamid ah abaalmarinada ugu weyn ee Catalonia laga bixiyo gobolka ay Barca ka dhisan tahay baa Messi lagu guddoonsiiyay abaalmarin weyn oo dadka ugu sareeya wadanka ama gobolka la siiyo waana abaalmarinta Cour de Saint-Jordi waana abaalmarin weyn oo la siiyo dadka ugu muhiimsan Catalonia ku nool waliba dadka wadanka waa gobolka difaaca inta la siiyaa kuwa gobolka amaanta sharafta u soo jiida sida Messi oo kale waa nin mid kamid ah ciyaartoyda ugu fiican caalamka waxaanu ka ciyaaraa gobolka Catalonia abaalmarinta ugu weyn baa la siiyay abaalmarintan waxa la soo bilaabay bixinteeda 1981 waana abaalmarinta ugu weyn ee labaad ay bixiso gobolka ka laga bixiyo dawladda goboleedka kanu ay bixiyaan marka abaalmarinta dawlad goboleedku baa gacanta looga saaray Messi oo abaalmarinta ugu weyn ee laga bixiyo Catalonia waana tan labaad wax kale lagu ma siinay waxay tahay sharafka u soo jiiday Catalonia
argentinku ayaa gobolkan wax badan u soo jiiday sharafo asagoo 13 jir buu yimaaday halkan wuxuu ka qabsaday shaqo weyn waxa uu la qaaday kooxdan Barcelona 34 koob buu la qaadayo waninka ugu koobka badan kooxdan waa ninka ugu goolasha badan oo uu dhaliyay 600 oo gool waa ninka ugu guulaha badan kooxdan waa ninka wax kasta u sameeyay xilli ciyaareedkan 34 gool u dhaliyo 13 goolna caawiyay horyaalka walibana waxa uu dhaliyay 12 gool oo Champions League ah Messi ma ahan ciyaaryahankii ugu horeeyay ee abaalmarinta la siiyo waxa jiray ciyaaryahanno kale oo Barca u soo ciyaaray oo abaalmarinta la siiyay waxaana kamid ahaa ninkii Barca u soo ciyaaray intii u dhaxaysay 1903 ilaa iyo isagoo tababar soo joogay 88 iyo 96 ninkaas oo ah Johan Cruyff oo la siiyay 2006 abaalmarinta tan akhbaraad kale ugu muhiimsan ciyaaraha waxa kamid ah kooxda Ajax Amsterdam ayaa abaalmarino weyn siisay labada ciyaaryahan ee reer Morocco ninka lagu magacaabo Ziyech iyo Masraoui labada nin ee Morocco u dhashay ayaa xilli ciyaareed fiican la qaatay kooxda kubadda cagta Ajax waxaana la gaaray xalay habeenkii Ajax ku dhawaaqi lahayd ciyaartoygooda sanadka ugu fiican Ziyech ayaa loo doortay xidiga sanadka ugu fiican kooxda Ajax halka Nasur Masraoui loo doortay da'yarka ugu xirfadda badan ama kan ugu xirfadda badan kooxda tan ee Ajax xafladii ugu weyneed bana lagu dhawaaqay oo inuu Ziyech yahay xidiga sanadka kooxdan Masraoui loo doortay kan ugu xirfadda badnaayo kooxda Ajax labada abaalmarinba waxa la siiyay kuwa Masaari kuwa Moroccan iyadoo habeen dambe 7 fiidnimo la ciyaari doono finalka FA Cup oo Manchester City doonayso in koobka gacanta ku dhigaan ayuu Fiston Company cadeynaya in Man City ay u baahan tahay hadda wali baahi weyn ay u qabaan ku guuleysiga koobka FA Cup si ay u gaarno uu leeyahay taariikhda weyn oo ah in ay noqdaan Man City kooxda ugu horeysay taariikhda Ingiriiska ku wada guuleysata saddexda koob England laga wada dhigo Premier League Liga Cup iyo FA Cup wuxuu leeyahay waxaanu lahay wali libaaxiyo u baahan wali koob inay qaadaan yaani baahi weyn baan u qabnaa buu leeyahay koobkan yaani kama dhigayso in Premier League ku guuleysan in koob aanu rabin kama dhignu leeyahay koobka ay qaadaan habeen dambe taariikh weyn ku gali doonaan laakiin Watford iska jira waa madax adeeg war ayaa sheegaya in Real Madrid ay mar kale dib u tijaabin doonto Salah doonistiisa Real iyo Zidane ba waxay xagaga dambe doonayaan in kooxdan shub laga dhigo Madrid waxa lagu yaqaanaa koox Champions League ku baashasha ku raaxaysta iska daldalata waana mid kamid ah kooxaha adduunyadan aadka looga ixtiraamo waxay isku day doonaan hadda in Mohamed Salah ay tijaabiyaan sidii gacanta ugu soo dhigi lahaayeen waxaana jirtaba leeyahay dalab Madrid ay u diri doonto kooxda Liverpool dalabkaas ay ku tijaabin doonaan hadii Salah ay ku ogolaan karayaan inay soo fasaxayeen in kale hadii ay Madrid la soo wareegto Hazard ay ku bedelanayaan Gareth Bale still Madrid waxay doonayaan Mohamed Salah oo ah nin kale oo aad u khatar badan marka Real Madrid waxay hadda diyaar u tahay leeyahay inay tijaabiso dalab ay u diraan ninka la yiraahdo Mohamed Salah war ayaa sheegaya Arsenal inay ka cabsanayso ay u badan tahay ama ay sheegeenba in Armenianka Mkhitaryan ugu tagi doonaan gurigooda yaani Armenianka Mkhitaryan inaan u raaci doonin finalka Champions League finalka Europa League ee ka dhici doona Azerbaijan maxayelay wadanka ninkan uu ka dhashay Armenia Mkhitaryan iyo waxa ay dagaalsan halka finalka lagu qabanayo wadanka Azerbaijan ba dagaal ka dhaxeeya waxaanay Arsenal diyaar u tahay leeyahay Mkhitaryan inay ugu tagto Arsenal yaani ugu dhex tagaan London markay u baxayaan finalka yaani aan hor u ka xiisan doonin baa leeyahay ilaa hadda Arsenal uma muuqato in ciyaaryahanka u ka xin karayaan Azerbaijan maxayelay Azerbaijan oo finalka halka lagu ciyaarayo 9 bishan May iyo ninkan wadanka ka dhashay Armenia dagaal weyn baa u dhaxeeyay oo soo socday tan iyo 9 Meeyadii wana sanadii 1994 marka wuxuu u badan tahay leeyahay Mkhitaryan inuu ciyaari doono finalka koobka ka maxay waxa laga baqaya dad yoga ku nool Azerbaijan in kan dhibaato weyn u geystaan Raheem Sterling wuxuu cadeeyay kulanka ugu adag Man City inaan wahayn kan ay la ciyaarayso United Manchester Derby waa mid kamid ah kulamada lagu jecel yahay xilli ciyaareedka la sugo wuxuu hadda kadib cadeeyay wuxuu hadda kadib kulankeena ugu adag xilli ciyaareedku ma noqon doono Manchester Derby buu leeyahay kulankeena ugu adag xilli ciyaareedku wuxuu noqon doonaa uu leeyahay kan aan la ciyaarin Liverpool oo ay hadda horyaalka isku hayaan baryahan labadan kooxood baryahan horyaalka ku tartamaan wuxuu leeyahay Manchester Derby meel iska dhig uu leeyahay taageerayaashiina kulanka xilli ciyaareedka isha ku wada hayn doonaan ee ugu muhiimsan wuxuu noqon doonaa uu leeyahay kan Liverpool aan la ciyaari doono yaani wuxuu leeyahay Manchester hadda xamaastaas ma nagu ahaan buu kulankooda kan baa noogu daran nimanka horyaalka ay doonayaan Liverpool waxay ilaa hadda ka shaqaynayaan xilli ciyaareedkan maxaad u garaaci weyseen Man City in Liverpool ay garaaci weydeen Man City ba horyaalka sanadkan looga qaaday oo ay Man City garaacday Liverpool wuxuu istarin cadeynaya marka wixii hadda ka dambeeya taageerayaasha Man City in isha ku hayn doonaan kulamada u dhaxeeya Liverpool iyo City wuxuu yiri hadda kulankeena ugu dambeeya derby wuxuu noqon doonaa yiri hadda kulanka aan ugu jeclaan doono ama kulanka taageerayaasha ugu jecel yihiin ama kulanka derbiga noo ah annaga hadda kadib ma ahan ka United aan la ciyaarino waa kan aan Liverpool la ciyaarino ayuu leeyahay colaad cusub baana ka dhex abuurantay Liverpool iyo Man City oo ku dagaalamaya Premier League Liverpool sanadkii hore waa tii la garaacay hadda Liverpool xagaga dambe waxay isku day doontaa inay mar dambe guul dare ka soo gaarin City waana sababta kulanka uu ka dhigaya inuu noqdo mid aad u weyn maxay labada kooxna bariyaan iyaga ugu cad Premier League guureysigiisa kii laga badiyo mooyaane ka kala horyaalku helaya
daafaca Chelsea Alonso wuxuu qarka u saaray inuu ku biiro kooxda Atletico Madrid oo waxa Atletico ka tagay Lucas Hernandez iyo Felipe Luis ba hadda bixi rabo waxay isku dayeen inay ka soo qaataan Chelsea Marcos Alonso